بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد maanta waxaan maartay video inaan duubo aan ugu tiragalay waxa weeyaan maalin dhow waan fogeyn ayaan video sii daayay oo midnimo web tv laga sii daayay kaasoo dadka Soomaalida ay siyaabo kala duwan ugu falceliyeen marka waxaan doorbiday in aan arrimaha qaarkood faahfaahiyo oo aan si fiican u sharaxa iyadoo waliba gaaban marka arrintaas ayaan maanta aan doonayaa tan ugu horeysa waxaan aaminsanahay midnimo Soomaaliyeed in ay lagama maarmaan ay noo tahay si aan ayaheen ugu tashano Etoobiyada kalena aan wax ula qaybsano midnimadeena waa lagama maarmaan midnimada Soomaaliyeedna mid iska imaanaysa maaha anigu waxaan aaminsanahay markaa in cadaalad iyo sinaan dhexdeena ah ay furo u tahay in ay maartay midnimo Soomaaliyeed la helo haddaba markaa cadaaladaas iyo sinaanta anaga gudaheena ah waxay u baahan tahay in si rasmi ah looga wada hadlo oo fundamental talks la sameeyo oo wixii caqabad ku ah oo dhan laga wada hadlo taas baa waxaan aniga aaminsanahay oo aan doonayay inaan sii wado oo maaragtay marnaba aan ka leexleexan doonin insha Allah taala marka waxaan sameeyay daraasad ayaa jirtay aan sameeyay daraasadaas 8 qodob ay ka koobneed oo uu ka mid yahay qodob ku saabsan qaab dhismeedka dawlad deegaanka Soomaalida waxaan la yiraahdaa administrative units oo maaragtay marka daraasada iyada bishii April sanadkii 2019 ayaan soo bandhigay jigjiga ayayna ahayd ilaa 40 ruux meelahaas oo waxgarad iyo aqoon-yahan iyo siyaasi Soomaaliyeed ayaa markaas ugu imaad oo soo bandhigay waliba in ay maartay ra'yigooda ka dhiibtaan dadka qaarkoodna maaragtay copy baan basiiyay marka 8 qodob halkaas soo bandhigay mid kamid ayuu ahaa waxyaabahan ku saabsan qaab dhismeedka marka videoga maalin dhaweeta midnimo tv ay soo dhigtay kale qayb kooban oo maadaama ay maartay dadka ayaga oo manage gareynaya qayb yar bay soo daayeen xoogaa arrinta iyada macnaha videogion is wada kaamil lahayn maadaama uu ahaa fahamka xoogaa waxyaabo uu saameeyay inay jirtaan aaminsanahay tan koobaad daraasada aan macnaha sameeyay oo ku saabsan qaab dhismeedka qabalayada degmooyinka iyo actually qabalayada wax weyn ma kamaana sheegin degmooyinka iyo gobolada 93 degmo iyo 12 gobolba maartay xog ku saabsan ayaan soo qaatay xogtaas waa xog hadda macnaha taala maaha wax aniga aan abuuray waa existing data marka waxayna ahayd shacabka ama populationka oo taas oo ka soo qaatay Central Statistical Agency Ethiopia iyo baaxadda dhulka oo maartay kililka aan ka soo qaatay iyo dakhliga waliba khaasatan 2010 halkan ayaan ku hayaa hadda oo maartay degmooyinka dakhliga ay soo xareeyeen saddexdaas xog ayaan aniga macnaha aan qaatay oo meel walba waa yeelan waxaan aniga keenay ma aha waan marka saddexda xog baan maartay ayaan falanqeeyay oo maartay falanqeyntoodii iyo waxaas baan raaciyay talooyinna waan soo jeediyay actually videoga hadda maartay maalin dhaweeta la daawaday tala bixintii kamay maartay kumay jirin taas marka intaas tahay in marka talooyinka aan soo jeediyay baa meesha ka maqan maanta inaan wax yar aan ka sheega khaasatan arrimaha ku saabsan administrative units ama maartay qaab dhismeedka talooyinka aan halka ku soo jeediyay waxa kamid ahaa in loo baahan yahay maartay Soomaali inay horta ay madal shireed oo ilaa 3 bilood soconay maartay ay yeelato oo waxgaradka oo dhan iyo aqoon-yahanka in la isku imaado wax kasta oo Soomaali arrimaheeda ku saabsan halka lagu faqayo oo marka go'aan rasmi ah oo maartay kontanka sano soo socota macnaha aan ku shaqaysan karno ku duuli karna in laga soo saaro taas waan soo jeediyay mid kale oo maartay degmooyinka iyo waxa ku saabsan waxaan soo jeediyay in maartay la sameeyo shuruudo oo daraasad rasmi ah aniga daraasad baan sameeyay oo maaragtay actually desk review la dhihi karo oo maaragtay marka
daraasad rasmi oo inta ka sii balaaran in la sameeyo shuruudo loo sameeyo qabaleeda wax meesha qabale noqonaysa maxaa looga baahan yahay degmada meesha noqonaysa shuruudaha looga baahan yahay waa maxay gobolkana maxaa noqonaya ani hadda saddex shay baan soo qaatay oo aan u arka inay yihiin as oo muhiim inay yihiin oo kollayba cilmiyan aan meel looga baxa lahayn waxaan soo qaatay inay meesha degmo noqonaysa ama qabale noqonaysa ay u baahan tahay inay shacab horta leedahay shacabkeeda laakiin optimum intaas ha noqdo aniga ma dhahayo laakiin shacab ku filan waa inay leedahay waxaa kaloo loo baahan yahay inuu dakhli ka soo xaroonaya meel oo meelaha kale uu ku tiirsan ma noqon karto waa inay ilaa ay xad xoogaa dakhli soo xaraysata haba la kabaad hadday rabtee haba la kabe inay iyadan dakhli soo xaraysa haddana baaxad waa inay leedahay oo baaxad yani ku filan oo markaa yani ummadda ay ugu adeegto waa inay saddexdaas aniga waa soo qaatay marka shuruud kale hadday jirta iyadan waa lagu soo dari karaa marka in shuruudo laisla garta shuruudahaas markii laisla garta kadib waxaa markaa loo baahan yahay in shuruudahaas yani si isku mid loogu fuliya meel waliba degmo waliba ama gobol waliba in loogu fuliya shuruudahaas ayaa loo baahan yahay laakiin inay macnaha yani meel lagu fuliyo meelna aan lagu fulinin taas cadaaladii ayay ka hor imaanaysaa sinaan ayay maarata ka hor imaanaysaa soomaalinimada ayay wax u dhimaysaa marka taasna waxyaabihii aan soo jeediyey ayay ka mid ahayd waxyaabaha xoogaha runtii aan u arka inay aan si fiican loo fahmin waxaa ka mid ah aniga waxaan soo jeediyey in degmooyinka iyo gobollada dib loo eega ayadoo shuruudo la dejiyey la isticmaalaya laakiin marnaba daraasadayda ka mid maaha mana soo jeedinin mana qabo in degmooyinkii hadda cusbaa oo dib laga sameeyey cabdi uu sameeyey maaragtay in laga noqdo ama la tirtira marnaba ma soo jeedinin aniga marka taas in aan asaas loo fahmin way fiican tahay in wax la dheelitiro ayaan aniga macnaha soo jeediyey dheelitirkaasna uusan yani laablakac ku salaysnaanino uu ku salaysnaado maaragtay daraasad la sameeyey iyo shuruudo laisla dejiyey oo laisku raacay taas macnaha in sidaas loo fahma waan soo jeedinayaa midda kale waxyaabaha aan soo jeediyey waxaa ka mid ah tirada xildhibaanada degmooyinka kasoo gelaya maxaa lagu salaynaya waa in laisla garto iyadana in shuruud loo sameeyo yani degmo walba macnaha ma si isla eg baa loo samaynaya ma wax si iska caadi macnaha mid walba wixii la rabo miyaa la iska siinaya laakiin mise wax nidaam oo shacabka meeshaas degan iyo maarata arrimo ku saabsan oo shuruud in loo dejiya iyadana tan kale maxaa lagu dooranaya maaragtay xarumaha xarunta gobol heer xarun degma xarun qabale intaba shuruudo in loo sameeya iyagana yani hadda waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ah in macnaha yani meeshii la rabo la geeyey meel ku habbooneed oo magaalo ahoo dhisan oo soomaali leedahay in lagala carara oo meel kale oo shaqo badan u baahan la geeya iyadoo dana khaasa iyo waxaas ay la isticmaalaya marka taana in shuruud loo sameeya waxaa kaloo aniga waxyaabahan soo jeediyey waxaa ka mid ahaa in shuruudo loo sameeyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer kelilba iyagana shuruudo adag loo sameeya oo markaa yani si madax kastoo timaadaba waxay rabta si ay u sameynin shuruudo adag loo sameeya oo shuruudahaas macnaha waxaa ka mid noqon kara hufnaan aqoon sare waayo aragnimo wadaniyad luqadaha takhasus balwad la-aan iyo waxyaabo la mid ah ayaa maaragtay ay noqon karaan midda kale waxyaabaha kaloo loo baahan yahay in laisla meel dhiga waxay ila tahay in la go'aamiyo tirada shacabka halka xildhibaan heer deegaan ku matelaya halka xildhibaan bay imisaa matalaysa macnaha etoobiyada hadda way leedahay taas macnaha way u degsantay marka taana waxyaabahan soo jeediyay ka mid ahayd midda kale qorshayaasha horumarka in ayadana macnaha loo sameeyo qaab cilmiyeed iyo qaacide rasmi in loo sameeyo taas waa intaas midda kale waxyaabaha kale oo aad looga hadlay waxaa ka mid ah oo aad ay dadka ugu falceliyeen tirada degmooyinka waxaan ka soo qaatay CSA Central Statistical Agency waan ognahay soomaalida deegaanka soomaalida inay cabashooyin badan ka jiraan oo maaragtay arrimo amni iyo arrimo kala dartood aan maaragtay koobkii aan lagu kalsooneyn oo meel badan oon la tirinin inay jiraan oo inta badanba meel macnaha yani aan si fiican loo tirinin arrintaas way jirtaa laakiin cabashada noocaas camal waxaa loo baahan yahay sidaan u wajihi lahayn nafteeda tirkoob kale hadda imaanaya sida loo wajihi lahaa in macnaha si rasmi looga hadla laakiin mar kastaba waxa officialkee unbaa shaqaynaya oo adiga aad wax ku samayn kartaa waxaan official lahayn oo iska caadi ah
يعني كما wax kuma salayn kartid marka tirkoobka marka aniga waxaan soo jeedinayaa arrin asal ahaanba tirkoobkeena inaan si rasmi tirkoob u samaysano waxa laga yaabaa inaan wax buunbuunina iyo waxyaabaas xataa dad iska jecel inay jiraan buunbuuninta ani ma qaba inay faa'iido ku jirto hal ruux oo Soomaali ah oo meel jooga in la tiriyaa loo baahan yahay laakiin wax kale oo dheeriyay waxyaabahaas yani hadaan badina يعني أنا خرج وحي نقول نقولنا investment أن لو بحنين بيهدو نقول نقولنا سكول ده سيد اللو نسيل لها عفمات سيد اللو مرتي لو هو لا عفمات لو قبل لها هو مركز سيد اللو دجيل لها قرشاش أصلا بيكاه لينس مركز لكن تركوب كأن الرسم جاي جبر كستويل كستودي كست أو سومالي هو ميل جوجا سيد اللو ترين لها إن إسكحل صارنا أي لو بهية مركز سيد يوصل جبوده يعني عبشوين كان عنك قبنا تركوبك تانا وأنا واحد اللي أجيه ميل بدل معني هذا كور واقع شيء taa waa midaas tan kale waxaa jirta maaragtay videoga aan maalin soo deeyay waxyaabo macnaha aad ay dadku ugu falceliyeen ayaa jirta isbarbardhig ayaan sameeyay qabri dahar iyo degmooyin kale ayaan isbarbardhigay laakiin ereygaan isticmaal wuxuu ahaa yani waan doodsiiyey dood dhex martay baan soo dhigay marka dadka qaar macnaha waxay u soo dhigeen maaragtay in la dacweynaya macnaha qabri dahar ma aha taas aan ula jeedo isbarbardhig markaad research samaynayso ama aad maartay baaritaan samaynaysa inaad wax isbarbardhigto waa laga maarmaan comparative analysis ayaa la yiraahdaa marka yani waxaan aad sheegayso waa inaad wax isbarbardhigtaa marka aniga tusaale baan u soo qaatay qabri dahar iyo degmooyin kale qabri dahar waxay ka mid tahay degmooyinka waaweyn marka laga eego dhinaca baaxadda qabri daharta hore ayaan ka hadlaya degmooyinka waaweyn ayay ka mid tahay dhinaca baaxadda dhinaca shacabka iyo dhinaca maaragtay dakhligaba waqtigeedu waa dhaxdhaxad marka degmooyinka aan barbar dhigay waxa kamid ah Shilaabo Filtu Hargeysa Jarati Gorodamo Baarey Cadaadle Wardheer Galaadi Afdam Mooyaale iyo Gaashamo marka kuwaas waxaan u soo qaatayna waxay ahayd kuwa ay bay isku dhadhow yihiin kuwa ayada ka yar lama barbar dhigi karayo kuwaas bay isku dhadhow yihiin markii saddexdaas shay oo la soo qaato shacabka iyo dakhliga iyo baaxadda inta ayada marka ayaan soo qaatay laakiin waxaan yar falanqeeyay Shilaabo iyo Filtu marka arintaas wax dad badan macna aad uga hadlay laakiin isbarbardhigaas ma aha in maartay la dacweynayo qabri dahar laakiin isbarbardhiga waa sida kaliya wax lagu ogaan kara marka inaan sidaas loo qaato waan jeclaan lahaa mid kale isbarbardhigaas aan sameeyay waxa weeyaan waxaan mar dhawaad ka soo hadlay Soomaaliya inay u baahan tahay cadaalad iyo sinaan marka waana haddana macnaha degmooyin baa la badiyay gobolada baa la badiyay marka waa in la isbarbar dhigo haday degmadan inta gobolkan intaan helay ama degmada inta heshay degmada la midka ahaydna inay inta hesho waa inaan ogolnahay dhamaanteen waa in arrinta isku raacsanahay hadii kala doodeen iyo hadalkeen macnaha way sii socon doonaan haddaan cadaalad doonayna weeyaan hadda aniga ma aan dhihin qabri dahar ha laga soo celiyay ama degmooyinkan هذا اللي بربر دقي أيه وحكاية ستامده لكن شروط قبر دهر الله راعي إن كواسنا الله راعى أو أن اللي ترسمينا أيه سوجيدي تاس إن عدالة هيبان أمن سنة هي وأنا كوسيزو عندنا أو كمال لي عندنا مركز تاس وين تاس بدك عليه فرهنتي هي كوسعتها دموين كانوا حاسة ميسي دولة أيه سميسي haddana yani degmooyin iyo arrimaha shacabku way codsan karaan mutacallimku uu soo jeedin karaa laakiin cidda samaynaysa yaa way cidda inay samayso laga rabo waa dawladda fariinta marka Soomaaliya idil way ku socotaa inay wax fahamta oo waxaan aragta laakiin cidda ay fariinta toos ugu socoto inay wax ka qabato loo baahan yahay waa dawladda ma aha qabri dahar inay yani ayada keento ay u keento maartay degmooyinkan kale ay maartay wax cabashada wata inay iyada macnaha wax siin doonto ma marka taas in qaabkaas loo fahmo meeshan waxaan aniga ka wada walaalayaal waxa weeyaan comparative analysis yani isbarbardhig dad badan oo runtii saas u qaatay way jiraan oo ayaga ka falceliyay maaragtay way jiraan oo saas u fahmay qaar laakiin qaab dacwad akal u soo dhigay tan kale maxay maanta Soomaali u wada doonaysaa in gobol iyo degmo iyo qabale loo sameeyo maxay wada doonaysaa taas macnaha sababtu keentay waxa weeyaan shaqo abuur macnaha degmadii markii meesha la keeno macnaha structure fara badan oo soo baxay shaqo badan laga helaya gobolka sidaa oo kala mashaariic badan baa la helaya maarta xildhibaano ayaa meesha ku soo biiraya awood siyaasadeed baa soo kordhaysa marka horta yani sababta yani arrintan in la dheelitiro loogu baahan yahay waxa weeye qof walba aqli ayuu qabaa waana u jeedaa arrimahaas dartood weeyaan
halka degmada ee dadka maalin dhaweyta magacaabista kaligood 20 iyo dhowr 22 meelahaas ayay noqonaysaa shaqaalaha kalena oo ka sii badan yihiin gobolka 70 iyo meelahaas 80 hadba inta degmo uu leeyahay ayay noqonaysaa waxa macnaha maarta shaqaale oo ka soo baxaya inta magacaabista oo kaliya inta kalena waa ka sii boqolaal iyo wax ay gaarayaan dadka marka waxay rabaan shaqo abuurkaas baa la doonayaa Soomaalida marka waa inaan isku weel wax uga cabirna marka sidaa darteed degmooyinka helay xoogaha saami helay oo degmooyin kale ay ku soo biireen waa in ayagana aan intooda ugu faataxeynaa oo Allah idin barakeeyo la yiraahdaa ayagana ay macnaha ay la shaqeeyaan kuwa aan wax helin wixii ayaga heleen wax la mid inay helaan inay la shaqeeyaan aniga ra'yiga qabo midkaas isbarbar dhigaan waxa weeye in horta daatada la isla arko la in marka la wada shaqeeyo ayaa loo baahan yahay laakiin aniga wixii waan helin laakiin adiga ha helin inay noqonin kan helayna haddii degmooyin inaan u baahana isku raacno kan helayna waad heshay anigana aan helo inay noqoto kii aan helinna inuu saas macnaha u fikiro taas waa midaas midda kale tusaale kale haddana soo qaadanaya yani qab dhismeedka gobolladeenna siday u kala baaxad weyn yihiin hadda maanta haddaan soo qaadano doolla ayaa ugu sarreysa oo 46,797 kilometer square ay ku fadhida city ayaa ku xigta waa 40 no waxaan ma doolla aan ku noqdo 46,797 saas inaan dhahay malaynaya city 46,000 afdheer 45,000 square kilometer liibaan 44 jarar 30 almost 39 shabeella 37 qorraxay 34,000 ayay ku fadhidaa faafan 24,000 erer 23,000 nogob 14,000 oo kilometer ay ku fadhidaa marka waxa markaas su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay labada gobol oo ugu weyn hadaan soo qaadana waa Doolo iyo City waxa hadda noo soo kordhay laba gobol mana diidani aniga ma diidani marna ma diidan daraasadayda macnaha saas kama hadlayso laba gobol soo kordhay laakiin labada gobol maxaa lagu doortay shacab miyaa lagu doortay ma dakhli baa lagu doortay mise baaxadda haddii ay noqon lahayd Doolo iyo City ayaa noqon lahaa kuwa ugu horeeya oo gobollo kale ay ka dhashaan waxa ku sii xigi lahaa afdheer liibaana ku sii xigi lahayd marka shabeella okay haddaba yani gobolka liibaantii hore oo hadda ay gobol kale ka go'ay laba gobol may noqonin liibaan laakiin gobol baa ka go'ay gobol kale ayaa ka abuurmay marka yani liibaan gobolka ka go'ay oo daawa 22,000 oo kilometer buu ku fadhiyaa square kilometer buu ku fadhiyaa square kilometer ayaan u jeedaa ayuu ku fadhiyaa afarta degme ka hartay marka hore intaan degmooyinka kale lagu soo dirin afar degme ka hartay oo ah yani maaragtay dheka suuftu filtu boqol maanya iyo Doolo hadda afartaas ka hartay marka hore liibaanta hore afartaas 25,000 oo square kilometer bay ku fadhiyaan daawana waxay ku fadhidaa 22 marka afartaaba ka balaaranba dhinaca shacabkana way isla egyihiin dhinaca dakhligana afarta macnaha hartay oo Doolo ay ku jirto iyo filtu ayaa ka dakhli badan actually waa meesha ugu dakhliga badan kilishanaad markaad eegtaan 2010kii maxaa gobol u noqon weysay markaa ha ka jawaabta macnaha Soomaaliya ka jawaabta taas waa midda kale yani gobolkii fiiq la dhihi jiray hore wuxuu ku fadhiyay 37,000 oo square kilometer ayuu ku fadhiyay macnaha yani gobolada intooda badan way ka sii baaxad weeyeen fiiq laba gobol ay noqotay marka aniga waxaan leeyahay de waa inaan isku weel wax ugu cabirnaa gobolada degmooyinkana isku weel aan wax ugu cabirnaa ilaa meeshii dheef iyo nacfi ayaa la qaybsanaya nacfigana wax la isku leeyahay mooyaane waxay cid gaar u leedahay ma aha marka waa in si cadaalad loo qaybiyaa marka gobolada waa in dib loo eega hadiiba gobollo marka inaan u sii baahannahay oo gobolada marba haddii la badiyey kuwa kalena waa isku weel waa in wax loogu cabiraa marka taana macnaha intaasaan ayaa kusoo jeedinaya ayad quraan ayaa jirta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن إنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وميزان كيف هلسا marka
miisaanka markaad adiga wax lagu miisaayana inaad wixii sax ahay lagu miisa aad doonto markaad adiga wax u miisaysana aad yaraysa khatartaas ay leedahay oo Allah la hortagaya marka horta inaan taa aad ugu fiirsanaa loo baahan yahay midda kale qabri dahar dad badan aad ugu falceliyay ma qabo aniga qabri dahar in leega xiga qabri dahar waa magaalo Soomaaliyeed oo qadiim ah waa magaalo dad hormuud ay ka soo baxaan waqti badan inuu hogaamisay weeyaan marka in loo arko inaan aniga qabri dahar aan maartay ka soo horjeeda ama aan nacabahay taas macnaha waa sidaanay markaas waa sida dadku arkeen ani dawladdeegaanka Soomaalida bay ugu yarba geeska Afrika Soomaalida joogta ayaa wada baabaasan kulligeen xil baan naga saaran dibkaasna bariga hore sidaan inaan ahayn waa la ogyahay 60meeyadii 70meeyadii sidaan ahayn waa la ogsoon yahay aniga marka hadaan qabri dahar aan nacabahay ama inaan maartay 15 sano ka hor ayaan daraasad kala sameeyay oo baarlamaanka federation ku jiro waxaan ka hadlayay xuquuq Soomaali ka maqan khaasatan kureys Soomaali ka maqan aan ka hadlayay khaasatan meelaha ay ka maqan yihiin daraasada markaan sameeyay qabri dahar ayaa ka mid ah maalin waan soo tagay 15 sano ka hor cid ogeed ma jirin markaan daraasada sameeynay markaan baarlamaanka soo dhigay markii baarlamaanku uu ka dooday markii la ansixinayo waliba in wax laga qabto cid ogeed cid ugu garab gashayna ma jirin hal ruux oo Soomaali ma jirin dad aan la hadlay waa jirtaa baarlamaanka warqad inay qoraan laakiin kaliya ayaa sameeynay waxaan soo dhigay meelaha ay wax ka maqan yihiin inay qabri dahar koow ka tahay markaas qabiiladii wax baan sameeynay marka waxaan ka soo horjeedaba waxa weeyaan inaan tan waaba naanfici weys waa isku daynay wax walba inaan wax kala badsano inaan kala cad ani wax kala baan ayaan inaan sameeyna weeyaan waxaan soo dhigi doonaa video balbalaaran oo waa soo gaabiyay mooyaane ayaa jiray kuwaasna waan idin soo bandhigi doonaa marka horta taas inay yani qabri dahar hadaaba macnaha qabri dahar aan maaragtay ka soo horjeeda ama wax kala aan wada faa'iido male waxa dooda aan wada iyo waxaan aan wado dhanba wax faa'iido ay keenayeen ba malaha ana waxaan leeyahayba war meeshaan anaga dad kooban baaban nahayba tiradeena dawladdeegaanka Soomaalida 110 milyan ayaan ka mid nahay in aan la maartay 110 milyan wax ka noqono waxayna ka soo dhacsanaa ayaa la doonaya hadda waxaan ogahay daraasad maalin weeytan waan sheegay meel kale aan ka sheegay daraasad la sameeyay oo Ethiopia 8 state in laga dhiga la doonaya 8 state oo nooc kale ah oo geographical ah Soomaalida afar qaybood ayuu kala gelinaya daraasadaas ururo weyn ayaana doonaya inay arrintaas hirgeliyaan hadaan anaga sidaan u fikirna marka waana la kala jiidanaya because anaga waxba isuma ogolin arrimaheen gudaha maana dhamaysanin marka anaga isku kalsoonaan karna marka ani taas macnaha taas ayaan ka leeyahay marka qodobkaasna halkaas aan ugu baxaya mid kale hal arrin baan saxaya oo maaragtay video ku jirtay hadalkayga waxa kamid ahaa yani in ay degmooyinkaas sharci ku imaadin ama nidaam ku imaadin marka ereygaas asaga waan iska saxaya waana ka cudur daaranaya degmooyinka sharci way ku imaadeen oo sharciin waxay ugu imaadeen macna processka caadiga ay mareen oo maaragtay baarlamaankan uu ansixiyay marka sharciyad ahaan sharci weeyaan degmooyinka laakiin waxaan u jeediyo daraasada qoraalka ah namqadana mar walba aan ku soo celinay waxa weeyaan nidaam cilmiyeysan oo shuruudo leh kuma imaadin marka ereygaas waan iska saxayaa waxaan u jeedo waxa weeyaan sharciyadooda waa sharci laakiin sharci asal ahaanba cadaalad ma keeno mar walba marka qaar cadaalad keeno marka qaar sharci dhan oo la dejiyo oo cadaalad darro loogu tirigalay inuu iman kara marka sharciyadooda sharci way yihiin degmooyinka laakiin nidaam cilmiyeysan laguma salaynin oo shuruudan oo marka degmooyinkii oo dhan loo simaya kuma imaadin baan u jeedi halkaas waan iska saxaya mid kale waxa kaloon saxitaan ku sameynay iyadana baaxadda degmada Fiiltu oo 18 emailahas aan maartay ku sheegay baaxadda degmada Fiiltu run ahaantii ereyga ma khaldana sidiisa uma khaldana degmada Fiiltu halkan waxa ugu qoran hadda 12956 kilometer square weeyaan degmada Fiiltu ee hadda jirta laakiin 18 sababta keentay ayaa waxay ahayd degmada Fiiltu waxa ka go'day Dhekasuuftu marka anigana degmooyinka hadda qabdahar iyo baaxadahooda markaan sheegay
waxaan ka hadlayay waxay ahayd degmada intay degmooyin kale ka go'in ka hor inta ay ahayd weeyaan marka haddii lagu soo daro dhika suuftooda lambarka aan sheegay 18 ayaa sax noqonay marka inta ayada macnaha khalad kale ma aha laakiin labada degmo markii la kala qaadana sida hadda aan sheegay bay noqonaysaa almost 13 kun meelahaas ay noqonaysaa field inta la kala qaadin oo fiiltida hore markii la sheegana 18 ayaa sax noqonay marka inta yarta ahna inay saas loo fahma way fiican tahay marka yani hadalkayga intaasaan kusoo gabagabaynayaa arrimahaas macnaha in saas loo qaata midda kale aniga waxaan diyaar u ahay wixii sixtaan macnaha inaan wax saxna diyaar u ah ama haddaan aniga wax ku khaldanahayn wixii aan ku khaldanahay si cilmiyeysan inay igu sheegto doonaysa haddaba dad badan ay la soo hadlay oo dibadda iyo gudahaba inaan ka wada hadal dad badan aan isqancinay arrimahaas macnaha diyaar aan u ahay hawshaana macnaha waan sii wadi doonaa wixii ila quman dadka kale oo arrintaas oo kale ra'yigana waa lagu kala duwanaan karaa asal ahaanba qaabka wax loo wajahay waxaan saa u leeyahay ani macnaha qaabka wax loo wajahay way kala duwanaan kartaa waxaan u leeyahay Soomaaliya dhab ha u wada hadasho ra'yi kala duwan ayaa jira Soomaaliya waa la ogyahay maanta ra'yigeed aad u kala duwan yahay ani marka waxyaalahan soo jeedinaya waxa kamid ah in la isku imaado waqti dheer la soo qaato marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh